shirkani jaraa'id ay sida wadajirka u qabteen barasaabka gobolka Awdal taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka taliyaha qaybta iyo duqa degmada Boorama ayaa ujeedadiisu daarnayd beeninta warar been abuura oo habeennimadii xalay ay qortay mid ka mid ah shabakadaha wararka kaasi ay u dhignaa qoraalka maqaalkaasi lagu baahiyay shabakada in ciidamo Oromo ah lagu tababarayo galbeedka gobolka Awdal mas'uuliyiintani oo warbaahinta la hadlay ayaa si wadajir ugu tilmaamay in uu warkaasi yahay mid waxba kama jiraan sidoo kalena sheegay in cid ka dambeysay qoraalkaasi ay la tiigsan doonaan sharciga waran beer abuura oo lagu qoray website-ka la yiraahdo Xeega News oo run ahaantii xaalad abuura xaaladaas oo laga abuuriyay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya khaasatan galbeedka Boorama meesha la yiraahdo cunaqabad iyo waraq oo warka been abuurka wili waxa lagu ururinayaa ciidamo nabadgelyada Itoobiya ku halis warkaasi wax alliye wax ka jiray ma jirto sharciyadan marinayna cidda ka beenta qortay wararkaas oo ah in xuduudda Soomaaliland iyo u dhaxaysa dalka Itoobiya aan jaarka dhahay lagu tababarayo ciidan beeleed kaasoo ku xun dirisnimada dalka aan jaarka dhahay Itoobiya warkaasoo aan waxba ka jirin oo war beer abuur ah ayna sameeyeen dadka wax xun ka shaqeeya waxaan horkooni doonaa dadka faldambiyeedka galay hay'adaha garsoorka insha Allah waxaan laga qaadi doonaa talaabada sharciga ku haboon halkan hadaan waxa isku weyn mas'uuliyiintii gobolka guddiga nabadgelyada halkan waxaan ka cadeynaynaa warka been abuurka ee loo qoray website-ka Xeega News waxa la wax ka jira inana jirin mas'uuliyiintii gobolka nahay xoogaal baan u nahay warkaasi lagu leeyahay dad baa lagu tababaraya xadka labada wadan u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ee galbeedka gobolka magaalada Boorama waxa la wax ka jiray ma jiraan dadkii waxaasi sameeyana gacanta lagu hayaa baadhista imika booliska ku haya waxaana la horgeenayaa maxkamadda aanu halkan ka cadeynaynaa ama cadaana wada shaqeynta tooska ah iyo wanaaga iyo walaalnimada iyo jaarnimada iyo wada shaqeynta buurada naga dhaxaysa dalka aynu jaarka nahay ee walaalaha aynu nahay Itoobiya aad iyo aad aan runtii uga xunahay ciddii ku kacday falkaana annagoo u marayna dariiqa saxda ah ee xeer ilaalinta iyo maxkamadda waxaanu gacanta u gelinay laamaha baadhista dembiyada ee gobolka Awdal ee Soomaaliland كل ما كان عندنا قلدي كهذا هذا شرتي حقوق ذا يوم محن كل هذا صحافة كهذا شرتي إما كان عندنا حبال عبورية وحنا عضين أو أنا نقف كحقوق دي سكوي العالم أو أنا طريقة شرعية صحة أنا أمرين ما أنا كنا دقائق منه هنا أنا مواد كست أنا إلى على حرية دي سيا حقيسة وأنا شرعية كوي العالم ومسؤولية النصارى وياه وحنو لنا هاي ويب سايت كاس وحي وقرواب بن عبور مسؤولين في قبل كانوا هاي ان وحا مركعه دولة إثيوبيا انت ان حد كلنا هاي قبل كان Awdal degmadii caasimadii Boorama tahay iyaga markaa sidaan u wada shaqeyno haday tahay barasaabka ila midka ah ee xadka aanu leenahay haday tahay taliyaha ciidanka iyaga ayaa ka maraga sidaan u wada shaqeyno nabadgelyada taala xadka iyo intaan mas'uulka ka nahay markale loo dooni maayo baan leeyahay anigu waxba kama jiraan waa been abuur sidiisiya warka inta leeg ciduu ka soo baxay iyo website-ka qoray mas'uuliyiintiisa gacantaan ku haynaa iyaga cadeyn doona وعبد السلام ساحة تلفزيون عالمي bulsha TV مقالة بورما.